dagaalka Gaza ayaa galay maalintii 421aad wuxuuna adduunku shada sare kala socdaa mid ka mid ah xasuuqyadii ugu waaweynaa qarnigan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa tan iyo markii uu isku soo taagay xilkan wacad ku mareeyay inuu soo afjarayo dagaalkan ka hor inta uusan gelin aqalka cad 20 bisha January ee inagu soo aadan. Warbixintan ayaynu ku eegaynaa Trump ma ka dhabayn doonaa ballanqaadkan se ilaa hadda maxaa ka jira inuu dadaal ku bixinayo joojinta xasuuqan. Maxayse tahay sababta keeni karta in Trump oo la wada og yahay garab istaaga aan xadka lahayn ee uu hayo Israa'iil inuu haddana joojiyo dagaalkan? Dhammaan su'aalahan ayaynu ku qaadaadhigi doonaa muuqaalkeenna caawa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna caawa. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dadaal badan ku bixinaya joojinta xasuuqa ba'an ee ka socda magaalada Gaza ka hor inta uusan xilka si rasmi ah ula wareegin 20 bisha Janaayo, isagoo aad u daneynaya in ka hor waqtigaas la sameeyo xabad joojin iyo isdhaafsiga maxaabiista. Warkan ayaa laga soo xigtay senatarka jamhuuriga ah ee la yiraahdo Lindsey Graham oo wareysi siiyay wargeyska Axios. Senatarkan ayaa intaas ku daray in Trump uu doonayo inuu dagaalka soo afjaro si uu waqti ugu helo siyaasadaha waaweyn ee uu ka leeyahay mandiqada Bariga Dhexe. Siyaasadahaas oo ay ugu muhiimsan yihiin xoojinta xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga iyo dhisidda isbahaysi ka dhan ah Iiraan. Senator Graham ayaa dhowaan ka soo laabtay booqashadiisii labaad ee muddo bil ah gudaheed uu ku tegay Bariga Dhexe. Booqashadan dambe ayuu kula soo kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Warka senatarka ayaa ku soo aadaya xilli ay muddooyinkii u dambeeyay ay socdeen dadaallo diblomaasiyadeed oo ay hormuud u yihiin Masar iyo Qatar. Dadaaladan ayaa looga gol leeyahay in labada dhinac, gumaystaha Israa'iil iyo Xamaas, ay gaaraan heshiis buuxa ama ugu yaraan xabad joojin. Dhowaan ayay caasimadda gumaystaha Israa'iil ee Tel Aviv gaareen xubno ka mid ah kooxda waanwaanta wadda oo ka socday dalka Masar. Dhanka kalena Xamaas ayaa Qaahiro u dirtay xubno sarsare oo ururkaas ka tirsan si loo dardargeliyo wadahadallada ay Masar iyo Qatar garwadeenka ka yihiin. Tallaabadan ayaa waxaa sii dardargelinaya heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhowaan ay wada galeen Israa'iil iyo Xisbullah. Heshiiskan oo ahaa mid ku meel gaar ah lana rajaynayo inuu dhalo heshiis dhammaystiran oo labada dhinac ay wada gaaraan. Trump intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada madaxtinimo wuxuu ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalada ka socda Gaza, Lubnaan iyo xitaa Ukraine. Kalfadhiyo uu la yeeshay xubnaha jaaliyadaha Carabta iyo Islaamka ee ku nool gobollo badan oo Mareykan ah ayuu carabka ku adkeeyey in haddii uu talada hayn lahaa aysan dhici lahayn dagaalada maanta socda, gaar ahaan dagaalka ka socda Gaza. Aragtida ah in dagaalka la joojiyo ayuu dhowr jeer oo uu wada hadal teleefanka ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha gumaystaha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku adkeeyey, isagoo doorashadiisa kadib Netanyahu u sheegay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku gaaro guulaha uu rabo, dagaalkana uu soo afjaro. Trump oo guushiisa kadib markii ugu horeysay tan iyo 2017 wada hadal teleefanka ah la yeeshay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa u sheegay inuu ka shaqayn doono joojinta dagaalka Gaza, isagoo tilmaamay inuu kala shaqayn doono isaga iyo dhinacyada kale ee gobolka iyo dunida sidii loo abuuri lahaa nabad waarta. Hadalkan ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta. Si kastaba ha ahaatee, tani kama dhigna in Trump uu ka tanaasulay taageerada aan shuruudda lahayn ee uu siiyo gumaystaha Israa'iil ama uu ku qasbayo inay joojiyaan dagaalka iyada oo aan la gaarin yoolka ay hiigsanayaan. Waxaana middaas daliil u ah siyaasadihii Trump ee ku aadanaa qadiyadda Falastiin wakhti xileedkiisii hore, wuxuuna wakhtigaas si buuxda oo hagar la'aan ah u garab istaagay gumaystaha, isagoo ku garab siiyey qorshihii uu gumaystuhu Yahuudda deegaano cusub uga dhisayay dhulka Falastiin ee ay xoogga ku haystaan. Israa'iil ayaa Trump ka heshay taageero aysan weligeed ka helin madaxweyne kale oo Mareykan ah. Ma jiro hogaamiye Mareykan ah oo horey ugu dhiiraday inuu safaaradda Mareykanka ka raro Tel Aviv una raro Qudus, iyadoo ay dhammaan madaxdii hore ee Mareykanku ka sinaayeen inay u aqoonsanaayeen Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil
ayaysan haddana ku dhiiran jirin inay safaaradahooda geeyaan. Sidoo kale Trump wakhti xileedkiisii hore wuxuu gadaal ka riixayay waxa uu ugu yeeray heshiiskii qarniga, qorshahan oo uu si buuxda ugu xaglinayay gumaystaha Israa'iil. Heshiiskan ayaa Israa'iil xaq u siinaya inay sii haysato deegaanada ay sida sharci darrada ah uga dhistay daanta galbeed, tallaabo ka hor imaanaysa go'aamadii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ay horey uga gaartay dhulka Falastiin ee uu gumaystuhu xoogga ku dhisanayo. Trump wakhti xileedkiisii hore wuxuu dadaal badan ku bixiyey caadiyeynta xiriirka waddamada Carbeed iyo gumaystaha Israa'iil u dhexeeya, isagoo ku guulaystay in dalalka Imaaraadka, Baxrayn, Morocco iyo Suudaan uu ku qanciyo caadiyeynta xiriirka ay la leeyihiin gumaystaha, lana galaan heshiisyo wada shaqayneed oo markii dambe la magac baxay heshiiskii Ibraahimiga. Tallaabadan oo ay Israa'iil qudheedu sheegtay inaysan weligeed ku riyoon. Dhammaan siyaasadahan oo uu weliba Trump dhowr jeer fagaarayaal kaga faanay xilligii uu xilka hayay, ayuu ballan ku qaaday inuu tallaabooyinkan sii dhammaystiri doono haddii uu mar kale soo laabto. Ballanqaadkan ayaa ka hor imaanaya ficiladiisa xilligii uu talada hayay. Haddaba haddii aynu u soo noqonno ballanqaadka ku aadan xabad joojinta, ayaa ka hor imaanaya ficiladiisii xilligii uu talada hayay iyo hadallada uu dhowaanahan ku celcelinayo, taasi oo ay ka dhalanayso su'aal muhiim ah oo ah sidee ayuu isku waafajin karaa isdiidooyinkan taageerada xooggan ee uu siinayo gumaystaha Israa'iil iyo sidoo kale sheegashadiisa inuu doonayo inuu soo afjaro dagaalka, nabadna uu ka dhaliyo gobolka. Dadka siyaasadda u dhundaloola ayaa jawaabta su'aashan ku tilmaama in Trump uu doonayo inuu iska dhaqo eedaymihii lagu eedayn jiray wakhti xileedkiisii hore, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen inuu yahay qof xagjir go'aanadiisa siyaasadeedna aysan ahayn kuwo dheelitiran. Maantana uu isku dayayo inuu aragtidiisa beddelo, isagoo isku ekaysiinaya hogaamiye nabadeed, doonayana inuu soo afjaro dagaalada ka socda meelo badan oo dunida Xubnaha uu xushay ka mid noqoshada golaha wasiiradiisa cusub ayaa muujinaya jihada siyaasaddiisa mustaqbalka. Siyaasaddaas oo ay saldhig u tahay kobcinta dhaqaalaha, waxaana xubnaha uu xushay, gaar ahaan wasiirkiisa arrimaha dibadda, ay ku suntan yihiin taageerada baaxadda leh ee ay taageeraan gumaystaha Israa'iil. Middaas oo sawir guud ka bixinaysa in diblomaasiyaddu ay noqon doonto habka ugu weyn ee Trump u adeegsado siyaasaddiisa lagu soo afjarayo dagaalka Bariga Dhexe. Diblomaasiyaddaas oo la filayo inay noqon doonto mid dhinac ka raran una xaglinaysa fulinta ajendaha gumaystaha Israa'iil, iskana indhatiri doonta qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaa jira tallaabooyin dhowr oo la saadaalinayo inuu qaadayo Trump si heshiis looga gaaro dagaalka Gaza, waxaana ka mid noqon kara inuu hindiso heshiis u janjeera xagga gumaystaha Israa'iil, fulinayana yoolasha gumaystaha, islamarkaana wiiqaya awoodda iyo joogitaanka xoogagga iska caabinta Falastiiniyiinta ee magaalada Gaza. Heshiiskan oo ay suuragal tahay inay taageeraan qaar ka mida dowladaha Carbeed ee la dhacsan siyaasadaha Trump, cadaadisna ay ku saaraan kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta inay aqbalaan. Waxaa sidoo kale macquul in hindisahan ama heshiiskan uu Trump ku dhex daro qodobo kooban oo faa'iidooyin dhaqaale, amni ama siyaasadeed u leh kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta iyo dalalka xuduudaha la leh dhulka Falastiin. Qodobadaas oo looga gol leeyahay in dhinacyada lagu dhiirigeliyo inay aqbalaan heshiiskan. Trump oo ahaa shakhsi siyaasadda ka soo galay dhanka ganacsiga ayaa caan ku ahaa sidii looga bartayba wakhti xileedkiisii hore xirfadda sare ee uu leeyahay qancinta dhinacyada iyo gaaridda heshiisyada degdegga isagoo middaas u adeegsada maskaxda ganacsi ee ku dhisan in labada darafba la tuso faa'iidooyinka ay helayaan haddii ay heshiiskan gaaraan, haba kala badsadaan faa'iidooyinka. Waxaana qorshahan wakhtigan xoojin kara dhacdooyinka ka soo cusboonaaday mandiqadda Bariga Dhexe oo ay ugu muhiimsan tahay heshiiska xabad joojinta ee dhex maray gumaystaha Israa'iil iyo Xisbullah, kaas oo horseeday in Xisbullah ay faraha ka qaado dagaalka Gaza, garabna aysan u noqon ururada wax iska caabinta Falastiiniyiinta oo jabhadda Lubnaan ay ka khafiifinaysay culayska cududda ciidan ee gumaystaha, halka Iiraan iyo kooxaha Shiicada ee ay taageerto wakhtigan ku mashquulsan yihiin xaaladda ka soo cusboonaatay Suuriya. Marka la eego dhammaan duruufahaas, waxaa suuragal in Trump uu ka dhex arko fursad uu ku cadaadin karo ururada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee ka dagaalama Gaza si loo gaaro nabad iyo xabad joojin joogto Ugu dambayntii,
inkasta oo ay jiraan walwal ka imaanaya dhanka gumaystaha Israa'iil kaas oo ku qotoma suurtagalnimada in Trump uu qaado go'aano ka hor imaanaya mowqifka Israa'iil sababo la xiriira dhaqanka looga bartay ee ah inaan la saadaalin karin waxa uu doonayo ama uu samaynayo. haddana waxaan shaki ku jirin tallaabo kasta oo uu qaado ugu dambayntii inay u adeegi doonto ajandaha Israa'iil sida laga dheehan karo siyaasadihiisii wakhti xileedkiisii hore iyo hadalladii uu sheegay ololihiisii doorashada iyo guushiisa kadib. siyaasadaha Trump ayaa weligood ku salaysnaa kuna salaysnaan doona fulinta danaha Israa'iil. guntii iyo gunaanadkii muuqaalkeenna aragtidaada daawade ma arki doonnaa ka hor inta uusan dhammaan sanadkan xabad joojin ka hirgasha Gaza. nagula wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komentiyada. haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. mahadsanidin.